way ku jeesi jireen waxayna dhihi jireen waa qof aan bulshaawi ahayn oo aan dadka dhex galin balse muxuu noqday wuxuu noqday qof adduunka oo dhan ku kulmiya hal meel dad badanna wuxuu ka dhigay in ay saaxiibo noqdaan hadaba waa kuma qofkan cajiibka ah maxayna tahay sheekadiisa guusha أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. السلام عليكم وأتكم حسن تاي داوشة فيديوغان كسو دوو شيكو iyo fikrad magacaygu waa Yuusuf Sakeen run ahaantii markii aan dhex galay sheekooyinka guusha cajiibka ah waxaan arkay in dhammaan dadkan guusha gaaray ay ka wada siman yihiin dad ku guuleystay waxyaabihii dadka kale ay markii hore ka aaminsanaayeen inaysan ku fiicnayn haddaba midoogow haddii ay dadku ku dhahaan waxaa tahay qof damiin ah qof aan waxba garanaynin qof aan waxba xifdinaynin haddii macalinkaaga uu mar walba kugu yiraahdo casharkan kuu diro ma xifdisid maskaxaadu waa adag tahay maskaxaadu wax ma qabato damiin ayaa tahay ogow inaad tahay ardayga ugu caqliga badan inaad tahay ardayga ugu fiican waynu aragnay hadda ninka aynu maanta martida u nahay dadku waxay dhihi jireen waxaa tahay qof aan bulshaawi ahayn qof aan dadka dhex galin balse wuxuu noqdayba isla wixii ayagu ay ku eedeynayeen wuxuu awooday inuu dadka oo dhan hal meel isugu keeno in dad badanna uu saaxiibo ka dhigo haddaba haddii lagu yiraahdo damiin ayaa tahay waxaa ma garanaysid maskaxaadu waa adag tahay bishaarayso waxaa tahay qof caqli badan waxaadna noqonaysaa qof hadhow laga wada qayliyo qofkan maanta aynu martida u nahay waa wiil dhalinyaro ah wuxuu dhiganayay jaamacadda Harvard wuxuu iska ahaa qof iska xirxiran oo aan dad ku dhex galin qolkiisa isagoo iska degan unbuu wuxuu ku fikiray maalin inuu sameeyo mowqic uu ku wada kulmiyo dadka jaamacadda ardayda jaamacadda dhigata jaamacadda Harvard kadibna wuxuu sameeyay mowqicii tartiib sheekadii way weynaatay waxay noqotay in haddana arday kale jaamacado kale Stanford ardayda dhigata in haddana ay ku soo xirmaan isla beejkii uu sameeyay markii hore way xadidnay sheekada balse 2004 ayuu banaanka u soo baxay mowqica ugu caansan dunida oo dhan ay dadku ku kulmaan Facebook haddaba Facebook waa fikradii ay ka timid wiilkaas xirxirnaa ee qolkiisa keligiisa ku jiray Mark Zuckerberg soo ma jeedid kadib markii uu Mark uu soo saaray Facebook oo caan noqday shirkadihii la tartamayay ee iibsanayay barnaamijyada saas oo kale ah ee magaca yeeshaba waxay isku dayeen wiilkan yar maxaa u malaynaysaa inuu jiray markuu sameynaya Mark Facebook daadis waxay ahayd 24 sano cudurdaar ma lihid fikradaada kamera dheli fikradaada banaanka u soo saar da'daada kuma xirna waxaa sameynaysid maanta haddaad rabtid inaad wax baratid waad baran kartaa waan yarahay mise waan weynahay kuma xirna adiga unbay kugu xiran tahay haddaba waxaa loo soo bandhigay wiilkan dhalinyarada yar in lagala wareego ayaa la doonayay barnaamijkan uu sameeyay mowqaca in lagala wareego kadibna lacag waxaa loo soo bandhigay milyaar dollar ah maxaa sameyn lahayd haddii lagu soo bandhigo adigoo 24 jir ah
milyaar dollar haddii lagu soo bandhigo lagu yiraahdo waxaan doonaynaa inaanu baalkan ka iibsano maxaa samayn lahayd? Mark da'diisu waa yareed balse caqligiisu wuu weynaa, saa darteeda wuu ka diiday. markuu diiday milyaar dollar yaa diidi kara. dadkii waxay bilaabeen inay ku yiraahdaan mawaalanta maxaa kugu dhacay? war ilmo yar inaad tahay ka faa'iidayso fursaddan, ma heli doontid fursaddan oo kale kuma soo maraysid, hadda ayaad haysataa, ka faa'iidayso, iska iibi baalkan. wuxuu yidhi markii dambe isagoo arrintaasi ka hadlaya, wuxuu yidhi lacagta la ii soo bandhigay marna ma mudnayn barnaamijkan aan samaynay, marna uma qalmin barnaamijkan inuu samaynay. dadkan lacagtan ii soo bandhigay milyaarkan dollar ma oga qiimaha uu leeyahay shaygan aan sameeyey, aaladan aan sameeyey qiimaha ay leedahay ma oga. runtiis ayay ahayd, ma ogeyn qiimaha uu leeyahay, waayo Facebook intaas wuu ka qaalisanaa. marka waxaa caado u ah in shirkadooda Facebook ay mar walba ku hayaan horumarin joogto ah, inay mar walba wax cusub noo soo bandhigaan, inay mar walba wax ka bedelaan. balse wadadama waxay ahayd mid ubax loogu daadiyey? may, waxay la kulmeen dhibaatooyin badan. waxaa lagu furay intaasoo maxkamadood, waxaa lagu furay intaasoo eedeyn, balse ma istaagin ilaa iyo maantana way shaqaynayaan, waxayna ku socdaan horumarintaas joogtada ah iyo inay mar walba wax cusub noo soo bandhigaan. hadda waxaynu ogaaneynaa fikradda sheekadan cajiibka ah. hadda waxaynu soo gaarnay qaybta fikradda sheekada. haddaba maxay tahay fikradda aynu kala soo baxayno sheekadan cajiibka ah? waxaynu kala soo baxaynaa 1. ha dhayalsanin fikraddaada. aaday muhiim u tahay inaadan marnaba dhayalsanin fikraddaada oona ku dadaashid inay fikraddaadu gaarto adduunka oo dhan. soo ma aadan arag markii hore fikraddu maxay ku bilaabatay? waxay ku bilaabatay jaamacadda, ardayda jaamacadda, kadibna adduunka oo dhan ayay gaartay. haddaba ku dadaal fikraddaada inay ka gudubto waddankaaga oo ay gaarto dacallada adduunka oo dhan. midda labaad, ha iibinin fikraddaada. fikraddaada ha iska iibinin. si kasta oo ay dadku kugu yiraahdaan, lacag kasta oo laguu soo bandhigo, weligaaga fikraddaada ha iibinin. ku dadaal fikraddaada iyo mashruucaagaba inaad adiga banaanka u soo saaratid oo aan dadka kale kaaga faa'iidaysanin. inta ay kaa gataan ayaga hodhow ay ka faa'iidaystaan. weligaaga fikraddaada ha iibinin, aan ka ahayn haddii aad haysid fikrad kale oo ka wanaagsan, midaas oo u baahan tahay maalgelin, lacag aad ku maalgelisid, markaasi fursad ha isdhaafinin. midda saddexaad, ha fiirinin dadka kale hadalkooda. aaday muhiim u tahay inaadan fiirinin hadalka niyad jabka ah ay dadku kugu yiraahdaan, balse aad ka dhigatid hadalladaasi hadallo dhiirigelin ah, hadallo aad ku gaartid guusha, horena ugu socotid. intaan oo dhan ayaynu kala soo baxaynaa sheekadan cajiibka ah ee Facebook. noloshu waxay bartay qofkeena inta uu ku socdo wadada guusha inuu la kulmayo dad badan oo dhaleecin doona, dad badan oo ku dhihi doona waxaas ma awoodid, waxaas ma noqon kartid, waxaas ma samayn kartid. balse inaanan hadalladaas oo dhan, hadalladaas niyad jabka ah, aan dhagahayga ka xirto oona ku socdo wadadayda guusha si aan uga dhabeeyo ahdaafteeda nolosha. hadda waxaynu soo gaarnay qaybta su'aal iyo laylis. su-aashu waxay tahay, maxay tahay fikraddan kaa guuxaysa ee gudahaaga ka shidan, midaas oo u baahan inaad banaanka keentid, inaad aftiinka keentid? layligu wuxuu yahay qor 3 shay
oo aad maanta samaynaysid si aad fikradaada uga dhabaysid, si aad fikradaada banaanka u keentid, si aad fikradaada u gaarsiisid adduunka oo dhan. hoos igu sheeg, hoos noogu qor fikradahaas. haddaba taniyo inta aynu kaga kulmi doono videoga soo socda iyo sheekada iyo fikradda soo socota, hadduu alle ogolaado, waxaan ku leeyahay mar walba ku soco wadada aad ku gaaraysid hadafkaaga, kuna dadaal inaad banaanka u soo saartid fikradaha muhiimka ah ee kugu duugan. adduunka oo dhan ayaa adiga ku baahan iyo fikradahaaga. aad ayaad u mahadsan tahay. فأكون بالقيم العظيمة. wuxuu ka soo degay eelboorka Toronto asaga oo 16 jir ah oona aad u daalan. wuxuu watay oo kaliya boorsad yar oo ay ugu jiraan dhar uu ku bedesho. wuxuu la kulmay dhibaatooyin aad u badan. wuxuu noolaa kaligiisa. wuxuu u lugeyn jiray meesha uu ka shaqeeyo. balse muxuu noqday? haddaba ma ku soo gaartay sheekada cajiibka ah ee ninkii qaxootiga ahaa ee noqday wasiirka? فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا.